السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muusku wuxuu ka mid yahay khudaarta ugu caansan looguna jecel yahay adduunka oo dhan waxaanay dhakhaatiirtu in badan ku celceliyaan in cunitaanka hal xabo oo muusa xilliga subaxdii ay ka dhigan tahay tallaabo aad u qaaday dhinaca caafimaadka waxaana muuska ku jira borotiino iyo faytamiinada kala ah faytamiin C iyo faytamiin B6 waxa kaloo muuska ku jira maadooyinka calciumka carbohydrate-ka xadiidka fosfoorka potassiumka iyo magnesiumka iyo kuwa kalaba oo jirkeenu u baahan yahay haddaba in la joogteeyo isticmaalka xabad muusa subaxda hore wuxuu jirka siiyaa karti iyo firfircooni xilliga maalinimo waxaanu dejiyaa una fiican yahay dhammaan neerfayaasha jirka waxaanu sidoo kale u fiican yahay caafimaad qabka wadnaha isagoo dawana ka ah inuu kor u kaco xaddiga kolestaroolka ah ee jirka ku jira waxaanu sidoo kale u fiican yahay caafimaad qabka lafaha isagoo xoojiya dheecaanka ay ku shaqeeyaan kala goysyada jirku waxaanu xoojiyaa difaaca jirka waxaanu u fiican yahay dheefshiidka waxaanu ka hortagaa dhiig yaraanta isla markaana isticmaalka subaxda hore ee xabad muusa wuxuu ilaa xad u fiican yahay ruuxa dumar ah ee uurka leh isagoo wanaajiya caafimaad qabka hooyada waxaanu ilmaha caloosha ku jira ka caawiyaa helitaanka oksijiinta ilmuhu u baahan yahay isla dhinaca kalena liin macaantu waxay ka mid tahay khudaarta inta badan dhakhaatiirtu ay kula taliyaan dadka isticmaalkeeda hadday tahay in biyaha laga toojiyo la cabo iyo hadday tahay in sideeda loo cunaba waxaana aad ugu badan liin macaanta faytamiin C-ga taas darteedna waxay ka hortagtaa igfashanka xasaasiyadda bakteeriyada iyo fayruska sababi kara xanuunada qaarkood waxaana ku jira liin macaanta maadada calciumka taas darteedna cabitaanka joogtada ee biyaha laga miro liin macaantu waxay u fiican yihiin caafimaad qabka lafaha waxaanay ka hortagaan xanuunka rheumatismka iyo xanuunada ku dhaca ilkaha waxaanay firfircooni siiyaan wareegga dhiigga waxaanay hoos u dhigaan tacabka iyo daalka uu dareemi karo qofku sidoo kalena isticmaalka joogtada ee liin macaantu waxay ilaa xad xakameeyaan hoosna u dhigaan dhiigkarka iyagoo ka ilaaliya inuu kor u kaco dhiiggu sidoo kalena waxay ka hortagaan kolestaroolka nooca halista ah ee la yidhaahdo LDL waxaanay fududaysaa marinada dhiigga ee wadnaha taga waxaanay dawo ka tahay hargabka iyo qabowga jidhka gala waxaanay wanaajisaa dheefshiidka waxaanay ka hortagtaa calool istaagga isla markaana waxay dhiigga ka saartaa sunta waxaanay ka dhigtaa dhiigga mid nadiifa waxaanay wanaajisaa difaaca jidhka sidoo kalena waxay keliyaha ka ilaalisaa qururuxa ama dhagxaanta yaryar ee ku samaysanta